maadaama arintan ay muran gashay isla markaasina lagu kala ra'yi duwan yahay qof walba muuqaalkan daawada waxa leeyahay asma hadda walaalkeed ku saxan yahay inuu markuu arkay walaashii muuqaalkeeda wareejinayo Telegramka in walaashiis oo qoorta ka jiro isagoo ka xanaaqay muuqaalkii iska duubtay misna ay u dirtay ninkaas Mareykan joogo isagana muuqaalkii uu soo qarxiyay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قال لكم حنا جينا كيسكن وسبيش مركل المقال هذا صوتاي سولو سبسكرايب سوق المقال كان والله كلا سو مدن وقالوا مركل المقال وهرب waxaad leeyahay gacmo furan ku soo dhawaad sidaad muuqaalka sare ku soo aragteen waxaan doonayaa ka dhacdo hadal ka dhacday magaalada Hargeysa misna noqoto dhacdo ugu baah oo dadka Soomaaliyeed ku kala ra'yi duwanaadaan dabcan marka maqasho dhacdo lagu kala ra'yi duwan yahay waa dhacdo saameyn leh marka muuqaalka ayaa rabaa inaad si toos ah u guda galo dhacdo aan wanaagsaneyn ayaa waxay ka dhacday maalmadii shalay tahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland dhacdaas oo ah gabar Soomaaliyeed oo muuqaal ee qaabanta iska duubtay dawladna walaalkeed uu nafta ka jaray dabcan waxaan u soo badatay maalmahan ugu dambeysay gabar baa muuqaal laga duubay waliba ayada iska duubtay dawlad wiil ee jecesha u dirtay oo aamintay wiilkii muuqaalka faafiyay haddaba gabar Soomaaliyeed markaa oo loo magacaabo Asma Khaliif ayaa dhacdo aan wanaagsaneyn ku qabsatay magaalada Hargeysa kadib markii ficilka ah in muuqaal iska duubo la faafiyo oo wiil saaxiib yihiin u dirto wiilkana uu faafiyo dhaqankii adiga aad garanaysiin ayaa sameysay kadibna walaalkeeda arkay waxa uu dhahay intii aan adduunka sharaf dhac ku joogi lahaa oo muuqaalka la wado iyo adiga nuskii arki lahaa adiga iska dhimow dhacdada ayaan bilow ilaa dhamaad soo bilaabi doonaa ugu horreynba gabadha magaceeda waxa loo magacaabaa Asma Khaliif wiil dhigi jiray Maxamed oo ku noolaa wadanka Mareykanka ay saaxiib ahaayeen macnaha way isku aansan jireen wax iska barteen dhankaas Facebook wiilkii iyo ayada muddo 6 bilood ah ay isku aansanayeen dawladna wiilkii waxa uu ku qasbay gabadhan ayada ah inay muuqaal iska duubto hadii ay jeceshaa ayadana way ku xijisay isaga dhankiisa uu fuliyay oo muuqaalka iska duubo u diray wiilkan markada qiyaano watay isaga daacad kama aheen xiriirka gabadhan oo la wado ee qiyaano ba u hoos duugneed wuxuu isdhahay maalin gabadha muuqaal ka qabo kadibna faafi waxa dhacday markada Asma inay wiilkii codsigiisa u fuliso inay muuqaal aan wanaagsaneyn iska soo duubto wiilkii ay u dirto wiilkii isagana dhagar qabo ahaa oo markii hore wiil duceysan ma aheen oo markii horeba gabadhan buurino soo qarxiyo waxa dhacday wiilkii muuqaalka sida u waday inuu Telegramka u dhigo Telegramka waxa ogaataan waa meesha ugu weyn oo muuqaalada lagu faafiyo haddii maqasho muuqaal hebel baa la soo faafiyay la soo qarxiyay Telegramka baa la soo dhigaa meesha ugu badan muuqaalada kala gato lacag way xataa waa la iibsadaa xataa marka wiilkii Mareykanka joogay gabadha muuqaalkeeda markay soo dirtay Telegramka buu dhigtay markii uu Telegramka dhigay markaa gabadhan loo magacaabo Asma walaalkeeda muuqaalka arkay markuu arkay gabadha ma wareysan muuqaalka ayaa u duubtay ma dhihin gabadhii qoorta ka jaray wuxuu dhahay adduun ma sii joogaysid adduun sharaf dhac iyo ceeb kuma sii joogaysid anina magac xumo ima soo jiidaysid iska dhimo gabadhii halkaas ku dilay marka dadkii Soomaaliyeed dhacdan ayada waa ay ku kala ra'yi duwan dad qaar waxay leeyihiin ma taageersanin in gabadha uu dilo wiilkan isaga ah dadka qaar waxay leeyihiin waa taageersana dabcan inta ugu geeli ma taageersanta ma taageersanin horta ugu horeeyba gabadha Soomaaliyeed anigu ma taageersanin in muuqaal ay qaabanta iska duubto ugu wiil baa hol dhashay wiilka walaalka ah ceebtaada way dhibaysaa wiilka walaalka ah ma ogolo ceebtaada in magaal lagu faafiyo sidoo kale wiilka walaalka ah halis ay taa u geysanaysaa in maanta uu arko walaashiis oo bari bulshada muuqaalka la wareejinayo dabcan ninka ragga ah taa muuqagsa karo ninka ragga ah sharaf iyo waliba iyo xabad xanuunkeeda waxa uu ka xigaa xabad xanuunkeeda mararka qaar xabad inay kugu dhacdo ayaa kaga sharaf badan ceeb ku soo gaarto in walaasha maanta muuqaalka la wareejinayo saa loo wareejiyo hato inkastoo naf in la jiray wanaagsaneen laakiin ila ka keena dabcan wax loo gagsan kara ma in maanta aad aragto muuqaal walaasha oo qaaban saa loo wareejinayo oo la leeyahay $2 $3 oo la kala gadanayo dabcan wax loo gagsan kara ma wiilkii markada gabadhan la dhashtay oo loo magacaabo isagana Muxudiin oo ahaan gabadhan ka weyn 2 sano yani waa labada oo isku xigto laakiin ay jahan isaga ka weyn markuu arkay muuqaalkii isagiina gabadhii ma wareysan sidee wax u dhacay ma dhihin muuqaalka adima iska duuba ma dhihin sida u socday toorey buu soo qaatay gabadhii buu jarjaray gabadhii buu dilay wuxuu taagan yahay aniga sharaf dhac adduunka ma joogay
iska dhimo inta aniga aan arki lahaa muuqaalkaaga iyo wajigaaga adigoo nool oo aniga igu dul baroranayo iyo muuqaalkaaga la wareejinayo labadaba isku arki kare adiga iska dhimo mididii ku tiri wiilkii markaa waxa leeyahay waa la raadinayaa gacan lagu ma haayo waa uu baxsaday marka waxa leeyahay waa la raadinayaa in la soo qabtaa la rabaa marka wiilkan aan ahaan halka la gudboona inuu sameeyo waxa ay ahayd markuu uu arko dabcan muuqaalka walaashii oo Telegram-ka la soo dhigay misna gacanteeda iskaga durtay ayadii muuqaalkiina soo qarxisay dabcan inuu dilameeyeen aan ra'yahanteeda maxay maanta dilka uu dilay waxba soo kordhimayso muuqaalku waa uu yaalaa meeshiisa laga faafina marka hadii dilkeeda uu ku xirnaa la muuqaalka in oo si faafin waxa leeyahay waqti muuqaalkii jooji gabadhii uu dilay dabcan muuqaalkiina wali meesha waa uu yaalaa marka inuu dhigtaadii ma ahayn inuu wax dila ma ahayn isagoo wadooyin kale iyo mowjado kale arinta ku xali kara dabcan mar walba walaal hadii xataa dhiiqad ugu xumeed oo lagu hala galo waxa loo baahan yahay adiga inaad la dareento walaalka inkastoo ninka ragga marka qaar duu xanaaqo naf gooynayo laakiin arintan sidoo kale wax laga xanaaqo way tahay walaasha ku dhalatay oo maanta muuqaalkeeda Telegram faafinayo ayadoo qaaban oo markii la arkay laayo wargowda mataqaniha waa muxudiin walaashii dabcan wax kale lama dhahayo ninka ragga waxa ogaataa walaashii markii la ceebeeyo isaga baa lagu xageynaa waxa leeyahay gabadha mataqanaha warniyo gabadha waxay leedahay Xasan gabadha waxay leedahay Maxamuud gabadha waxay leedahay Hebel walaasha marba waa sharaftaad marka wiilkan wuxuu ka xanaaqay arinta waxa leeyahay muuqaalka Telegram-ka marka la soo dhigay inuu baaro Telegram-ka waxa uu wacnaa rag baa soo wacay oo dhahay saaxiib walaasha soo fiiri Telegram-ka bay dhaxtala rag baa ku falaash ragii baa ka xanaajiyay isagana wuxuu dhaanay walaashii ceeb ma sameynayso maxay gabadha loo magacaabay asma qaliif wixii aan jirtay sida la sheegay gabar asturan aamusan oo masabkeeda iyo waliba sharafteeda ilaaliso isaga markada waa uu isku huway walaashiis wuxuu aaminsanaa walaashiis inay waxaan sameeyeen oo aaminsanaa raggaas markay soo wacay ay dhaheen walaasha Telegram-ka bay taala ragii boolo dagaal xataa isagoo isdhahay walaasha waxa ma sameynayso misna markuu Telegram-kii uu galay muuqaalkii markuu arkay wuxuu dhahay inaan naf jara maahan oo gabadhan aad dilo maahan hal kale iyo ma banaanaba marka arintan ah in muuqaal iska duunin loo diro marar badan akadi marar badan yaa ku maqlaaya laakiin marar badan waxa la dumar oo arintan ka jooga nin ha aaminina rag qaarkood waa rag xun maadaama arintan ay muran gashay isla markaasina lagu kala ra'yi duwan yahay qof walba muuqaalkan daawad waxa leeyahay asma hadda walaalkeed ku saxan yahay inuu markuu arkay walaashii muuqaalkeeda wareejinayo Telegram-ka in walaashiis oo qoorta ka jiro isagoo ka xanaaqay muuqaalka iska duubtay misna ay u dirtay ninkaas Mareykanka joogo isagana muuqaalkii uu soo qarxiyay